ceelgaabo in meesha burcad soo gashay intii aanan gaadhin niman wadaniyiin oo Soomaaliland ayaa waxay weeraray waxay kala hadeen oo ka reebeen laashkii ay wateen dabeetana waxay ku carareen waxay buuraha intaas markayna qortay dhacday ayaan meesha tagnay dabeetana waxaan u fadhiisanay shalci oo meesha laashka laga reebay ciidamadii oo dhan baa hawl galay waxa hawl galay shicibkii deegaanka oo dhan tiibad degmada tuulada la yiraahdo shalcaw iyo gudmacas tuulayana la yiraahdo labadaas tuulo iyo shicibkii xataa beeralayda hay dhulka deegaan oo dhan baa hawl galay hawlgalkii waxa suuro gashay markii ugu horeysay inay niman shicibi laba iyaga kamid ah oo wadada ka eegayay saddexna ay ka dambayso oo ay yiraahdeen anaga wadada eegayna naga daba yimaada in niman shicibi oo qoriyo sidaan ku guuleystaan inay qabtaan iyagoo ku beeniyay shaah loo kariyo inuu baqtayo dabeetana gaaday dabeetana qabtay ku dhigidii qoriga furkii kan jaban imka arkaysaan waxa gacanta ku jabtay qoriga laga duray halka markay joogtay ayaa riboodkii noo keenay ciidankii oo dhan ku hawlgelinay soonkii oo dhan baan xidhnay dabeetana waxaan ku guuleystay ciidanku guuleystay inay gacan iyo shicibku ay wataa in gacanta lagu dhigo saddexdii kale sidaas aad lagu soo qabtay oo shantoodii baa la soo keenay shantaasina ay waxba kama maqnayn laashkaas bay wateen 40 ku saaran yahay afar qorina waa siteen afartoodii qori gacanta lagu qabtay laashkii wixii gacanta lagu qabtay ayagana waa gacanta lagu qabtay hawshaasi sidaas ay ku tushay burcad badeedan ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland uu shirtiraayay oo uu qabtay dhalashadooda ku cadeeyay inay ka soo jeedaan gabi ahaanba deegaanada Puntland burcad badeeda ayaa saameyn weyn oo mushkiladeed ku leh xeebaha Soomaaliya iyadoo oo xeebaha Soomaaliland ala loo tiriyo in ay yihiin kuwa amaana waxaana qabashada burcad badeedani xilligan ku soo beegantay xilli ay qaramada midoobay shir caalami ah oo lagaga hadlayo ka hortagga burcad badeeda loo ay ku qabatay